magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa gaaray ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ambassador James Wam waxaana soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid xarunta madaxtooyada Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb ayaa la geeyay wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya Ambassador James Wam waxaana uu halkaasi kulan kula yeelanayaa madaxweynaha Galmudug iyo ku-xigeenkiisa maantay waxaa booqasho loogu yimid wafdi ballaaran oo hogaaminayo ergeyga gaarka qaramada midoobay Mr. James Wam wafdigiisa ay xubno ka yihiin ama qayb ka ahaayeen hay'adaha qaramada midoobay sida WFP iyo UNDP waxaan ka wada hadalnay arrimaha horumarinta Galmudug arrimaha doorashooyinka iyo security-ga ama amniga dhammaan arrimihii aan ka wada hadalnay waxay nagu soo dhammaadeen intii jawi iyo dadiilo leh oo aad iyo aad runtii rajo badan ay ka muuqato ama ay ku jirto waxaan rajaynaynaa inay miro ka soo baxaan annaga reer Galmudug ahaan waxay noo tahay shirkan wuxuu noo ahaa maantay fursad weyn oo arrimo badan looga hadlay arrimo badan aan uga faa'iideysanay muddana aan sugaynay si guudna arrimaha doorashooyinku waa kuwo Soomaalida oo dhan wada sugaysay ama runtii aad iyo aad loo danaynayay iyadana aad baan uga wada hadalnay waxaanan ka sugaynaa ama rajaynaynaa inay ka soo baxaan ama hore loo socdo oo laga baxo arrimihii taagnaa ama arrimihii muddada cakirnaan rishaan ka qabnaa ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Wam ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu waday dadaalo uu ku raadinayo in xal loo helo muranka doorashada waxaana uu Garowe iyo Baydhabo kulan kula yeeshay madaxweynayaasha labada maamul halka madaxweyne Axmed Madoobe iyo xubnaha midowga musharaxiinta ay yeesheen kulan dhanka internetka ah wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya James Wam ayaa waxaa sidoo kale la filayaa in maalmaha soo socdo uu la kulmo qaar ka mid ah saamileyda siyaasadda ee dalka kaasi oo qayb ka ah xal u helista muranka doorashada xubnaha beesha caalamka ee taageera siyaasadda Soomaaliya ayaa waxa ay wadaan dadaalo ku aadan sidii dalka uga dhici lahayd doorasho Maxamed Abuukar Gobonimo TV Muqdisho.